هلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan subax wanaagsan baan idin leeyahay tacaalada dunida waa walaalkii Axmed Daawud oo idin la jeclaysay inuu idin la wadaago wax yar oo talooyina dabcan walaalayaal waxaynu ognahay inaynu qabano shaqo aad iyo aad u qiimo badan shaqo runtii aad iyo aad u qurux badan oo qof wala Soomaaliyeed marka uu maqlo ama uu xogteeda ka boogto uu jeclaysanayo inuu dabcan ganacsigan ku fara adaygo isla markaana uu noloshiisa oo dhan ku dabaqo sidii uu guul waxtar looga soo hoyn lahaa ganacsigan waxaynu isla ogsoonahay kambanigeenan Forever Living Product inuu yahay kambani caalamiya oo adduunka oo dhan ka howlgala ugu yaraan 160 wadan xarumo ku leh maasha Allah maadaama marka waqtigu inoo saamaxay ilaahayna inagu ilhaamiyay inaynu ganacsigan qayb ka noqono waxa muhiim ah inaynu la xajeclo badan ka qabno oo aynu waqti badan gashano waqti adag aynu gashano marka si aynu haddaba guulaheena u xaqiijino oo guulo macquul ah oo wax kool ah aynu u gaadhno waxayna la gudboon inaynu samaysano timetable waxa la yiraahdo time plan qorshe waqtiyeed aynu shaqadeenan xaqiijino oo aynu qabanno oo aynu la soo noqono wax kasta oo kambanigu inoo ogol yahay waxa jira kambaniya aan noloshaada wax badan ku ogolayn laakiin inaga shirkadeen waxay inoogu tala gashay inaynu waqtigeena hadaynu sidii loogu tala galay u gelino oo sidii loogu tala galay ganacsigan aynu u dhaxgalno oo sidii loogu tala galay aynu qorshe iyo ajenda u yeelano inay inagu soo celinayso wax kasta oo qurux badan oo shirkadu ay bixiso adduunka ay u ballan qaaday waxa kamid ah jeebkeenu inaanu marnaan marnaba oo daily cash maalin walba inaynu ganacsigeena lacag ka samayn karayno dhaqaale joogto ah oo aynu ku maareyno nolosheena gaarka waxay sidoo kale inoo ballan qaaday inoo diyaarisay shirkadeenu ama ganacsigeenu monthly commission lacag bilaa oo iyaduna diyaara qofkii shaqaystay ee dhidee tabca ee waqtigiisa la soo baxa lagu soo celiyo bilaa oo iyaduna aad u adag oo runtii wax badan ka kafaynaysa meelo badan ka gufaynayso noloshaada gaarka ah waxaynu ogsoonahay sidoo kale businesskeenu inuu inoo diyaariyay wax la yiraahdo yearly awards abaalmarina sanadla oo runtii aad u kala duwan oo midba mid uu ka sii dambeeyo uu ka sii xiisa badan ama uu ka sii xamaasad iyo kulayl badan sababtoo ah qofka marka la leeyahay war adigu wax qabso wixii aad qabsato wax u dhigma ama wax leeg baan kugu soo celinaynaa waa wax ajiiba oo runtii in dhulka la dhiga aan mudnayn sidaa darteed la xajecladu haynagu jirto dadaal haynu ku darno waqtigeena aan balan gareyno qorshe maalinla aynu ku shaqeyno mid usbuucla aynu dejino mid bilaana aynu dejisano waxa iman doona oo adiga gondahaaga iyo jeebkaaga ku soo noqon doona wax waloo ku farxad geliya si aad